waxaa tusaale fiican u ahayd maantay wixii ka dhacay golaha shacabka. saakay markii laisku yimid bahda amniga waxay u soo diyaar garoobeen ee ajiibeen codsigii uga yimid golaha shacabka, wasiirada amniga ka shaqeeyo iyo taliyaasha ciidanka iyo intii kaabayaasha ahayd amniga dhammaan waxay ku soo xaadireen golaha shacabka iyagoo ajiibayo codkii iyo codsigii uga yimid golaha shacabka. nasiib daro kooxdaas hadda aan tilmaamay farakutiriska ah, wax dan shacab iyo wax dan qaran ay ka shaqeynayaan ay aada u yar tahay. caqligooda uu ku soo koobmay inay wax kasto inay sameeyaan si dowladnimada soomaaliyeed ay u wiiqaan ayaa hor istaagay in barlamaankii uu mataqaanaa dadkii ay u yeereen ay wareystaan. fidnadu waxay ka bilaabatay ciidanka, taliyayaasha ciidanka oo codsaday waxyaalaha qaarkooda amniga ku saabsan inay qarsoodi yihiin, aan loo baahnayn in bahda warfaafinta ay goobjoog ahaadaan maadaama waxyaalaha qaarkood ay runtii xasaasiyad amni ay leedahay. arrintaas kooxdii yareed ayaa hor istaagtay, buuq ka kicisay, isku dayay inay isticmaalaan farsamo muxuu ahaa xeer hoosaadka iyo iyadoo la isticmaalayo. guddoonka si hufan ayay ugu fasireen, dastuurka iyo xeer hoosaadkaba intaba waa loo fasiray. markay qanci waayeen baarlamaanku wuxuu ku kala baxaa cod baa la geliyey in miidiyuhu joogo iyo inuusan joogin. cod aada aqlibad u ah 104 ayay kala noqdeen. kadibna waxay bilaabeen buuq inay sameeyaan. muxuu ahaa miiskii uu fadhiyey baarlamaanka laga hagayey ayay hor tuurteen. baarlamaanka intiisa kalena way fadhiyeen sida muxuu ahaa aad ku aragteen idinkaba muxuu ahay miidiya.